السلام عليكم maalin wanaagsan sida balanta bayno ahayd maanta waa maalin talaada waxaad naga sugeyseen casharkii koowaad ee maadada physiology-ga casharkani maanta waxaynu ku baran doonaa introduction to physiology waxaynu kaga baran doonaa saddex qodob oo muhiim u ah kuwaas oo kala ah medical terminology of physiology oo ah ereygan meesha laga keenay macna ahaan waxa uu ku fadhiyo iyada ayaynu kala qaybin doonaa okay qodobka labaad oo aynu ku baran doono definitionska oo ah common definitionska ugu caansan ee lagu qeexay maadada physiology-ga maxay tahay inaynu isku ogaano waa waajib qodobka ugu dambeeya aynu ku baran doono wax loo yaqaano types ama noocyada ay u kala baxaan physiology-ga waxaan rajaynayaa casharkan dhammaadkiisa intaas inaan ka baahi tiro doono insha Allah nala socod wanaagsan aynu bilaawno marka qodobka koowaad oo aynu kaga hadli doono ah medical terminology of physiology ayaynu ka kala jibin doonaa meesha ka yimid iyo waxa loo jeedo ereygan physiology waxa uu ka kooban yahay sida aad u jeedid laba erey oo ah physio iyo logy oo ah study midani waa study sida aynu hadda ka dhawaajinay physio ama waxa laga keenay erey Greek ah oo loo jeedo physis oo macnaheedu tahay nature waa dabiici waxyaabaha dabiiciga ah laakiin marka barashada dabiiciga ay noqonaysaa balse ma ahan maadadani qeexitaankeeda hadaynu ka hadalno wax qodobkeena labaad qodobka waa horta inuu hal mar ku celino physiology medical terminology ereygan waxa laga keenay two Greek words oo ah physis iyo logy oo ah study of nature aynu ku gudubno marka hadaynu noqono definitionska markaynu ka hadlayno ama qeexitaanada ugu caansan waxa lagu qeexay inay tahay study barashada of sida how the body works or functions sida jirka u shaqeeyo ayaa lagu bartaa maadada marka qaabilsan shaqada jirka waxa loo yaqaanaa physiology marka wax kale ka baran doono waxaynu ku baran doonaa xubin nude unug sida u shaqeeyaan un baynu ku baran doonaa cell function tissue function organ function iyo organ system functions ayaynu ku baran doonaa okay waxa kale lagu qeexaa inay tahay the study of functions of the body waa maadada lagu barto shaqooyinka jirka marka hadaynu soo koobno marka maadada physiology waxaa lagu bartaa shaqooyinka jirka qodobka labaadna waa iga haystaan filan qodobka koowaad waxaynu soo baranay physiology medical terminology ama show kibid waynu kala jarnay midkan waynu sheegnay waxa loo jeedo hadaynu u noqono marka waa maxay typeska marka qofba si ayuu u dhigaa buugaagta inta badan si qofba si ayuu u sharxaa oo ah authorska ama dadka buugaagta soo qoro qofba si ayuu u qeexay marka typeska laga hadlayo typeyada marka ama noocyada marka aynu ka hadalno waxa ay tahay maadadani buugaagta qaar waxay sheegayaan inay tahay general iyo systemic oo ah general physiology iyo systemic physiology general physiology markaynu baranayno jirka dhan ayaynu baranaynaa shaqooyinkiisa markaynu baranayno systemic waxa loo yaqaanaa system aynu baranaa circulatory system aynu baranaa cardiovascular aynu baranaa waxaas oo kale marka noocaas labadaas waa loo qaybiyaa hadda marka anagu waxaynu u qaybinaa marka laba mar ayaynu u qaybinaynaa mar sida ayaynu u fiirinaynaa oo aynu categorigaas oo aan u qaybinayno systemic iyo general ayaynu u qaybinaynaa marna waxaynu u qaybin doonaa anigoo isku dhex darayna waxaan dhahaynaa plant physiology waynu kooxaynaynaa marka plant physiology ayaynu baran doonaa maxay kaloo baran doonaa animal physiology ayaynu baran doonaa okay waxaynu kaloo baran doonaa oo inu qaybin doonaa typeskeeda in ay tahay medical physiology iyo wax badan oo ka badan ayaa soo raaca marka muhiimadda waxay tahay typeska marka laga hadlayo in systemic iyo inuu fiirino general iyo systemic kulli ma sharxayno waa general waa guud ahaan markaynu u sharxayno oo ah lug gacan madax il dheg kulli ayaynu sharxaynaa general weeyaan systemic waxay noqonaysaa inaanu system u sharxno cardiovascular oo kale inaan gooni u sharxno physiology-giisa inaanu neurophysiology gooni u sharxno inaanu endocrine physiology gooni u sharxno noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa systemic kuwan marka waa markii guud ahaan organismska la isku keeno ayaynu u qaybinaynaa waa plant physiology-ga waxaa gaar u leh dhirta siday u shaqeysaa geedka ama moxoga ama jirida siday u shaqeeyaan okay
animalka oo kale xayawaanka libaaxa sidoo physiology jirkiisu shaqeeyayo kale baran doonaa ama raha iyo wixii la mid ah okay medical physiology marka midani waa caafimaad ahaan shaqada ay qabtaan jirka marka shaqooyinkiisa oo ah functionska jirka uu qabanayay haday ku yimaado xaalad kale oo ah sida pathophysiology oo kale iyo waxyaabahaas oo inta badan waxay soo hoosgalaan medical physiology casharkeeni koowaad aynu kaga hadlaynay introduction to physiology halkan ayuu nooga yahay waxaan rajaynayaa inaad labada qodob iyo saddexda qodob ugu yaraan aad wax badan ka fahanteen muuqaalka xiga insha Allah ayaa inoo balana